تعالى أبديتك أمباسيف بإذن الله تعالى أما وربحنا وقدم بشركة أمباسيف waxaa jira waxyaalo yaryar oo kusoo kordhay xagga ecosystemka o connect iyo dhammaan walaashana amino qoranaan u daynayaa iyada insha allahu tacaala idinka jaahil saari doonta laakiin anigu waxaan focus garayn doonaa ama aan xoog isugu geyn doonaa maxaa la yidhahdaa 11 October sidaad ogeydeen 360 ama Ombasif 360 saddexda nin ee ugu sarreeya liidarrada Ombasif Marty Red iyo maxaa la Chris ay wadeen ayaa waxaa ku soo biiray CEO-geena Ash Mufarax ashna maaragtay waxa uu bixiyey update runtii aad iyo aad u qurux badnayd waxaad ogeydeen in ma aragtay corporate ama kulankii weynaa ee shirkadda uusan asbuucii lasoo dhaafay dhicinin mashquul jira darteed marka wuxuu isku dayey inuu halkaa yimaado wuxuu markii koobaadba uu salaamayba uu ku bilaabay wuxuu yiri waxaan idinkaga soo baxay kulan ama webinar kale oo ma aragtay markaas uu ma aragtay warbixin dhexda u mareysay ayuu ka soo tagay kadibna ma aragtay si uu ma aragtay u sheego ma aragtay warbixinta shirkadda uu ma aragtay nimanka u siiyo mar walbana 360 wuxuu u dhacaa maalinta arbacada ah adiga xilliyada galabtii adigu waqtiyadu marmar baa la kala bedelaa laakiin inta badan 7 UK time ilaa iyo Africa 9 u badan yahay laakiin mar walbaba waa waqtigu isbedelaa marka markiiba uu soo galayba wuxuu yiri aad baan uga xumahay kulan baan ka soo baxay sidaa darteed waxaan jecelahay si update degdega inaan siiyo wuxuu ku bilaabay markii koobaadba macnaha in uu ma aragtay mashquul aad u fara badan ay ku jiraan maadaama launchingkii ugu weynaa adduunka ee shirkadii samaysa ay samaynayaan ayna ummadii dhan ay ku soo jabtay Ombasif ee millions people ay ecosystemkeeda maalin walba ku soo shubmayso lana maaragtay xoog iyo xoog loo soo gelayo qaybta ma aragtay paymentyaashana dhinaca maaragta kaararka processorskina ay lacagii xakamayn waayeen ay ma aragtay halkaas qaybtii labaad qoladii hore ay xakamayn waayeen haddana qolo kale loo move gareeyey qoladii kale haddana ay ma aragtay paymentiga ay slow ka dhigtay maadaama ay xakamayn kari waayeen halkaas ayuu ma aragtay warbixin ka siiyey marka wuxuu yiri macnaha culayska jira ama maaragtay shaqada aan ku jirno maalin walba macnaha hays yar oo ah maaragtay iska kaftamay uu yiri maalin walba waxaanu booqanaa macnaha we visit in hell macnaha daily basis macnaha wuxuu ka wadaa macnaha shaqo adag ayaan si maalinla ah u haynaa taasoo runtii aanan inkiri karin waad ogaan kartaa shirkad dhan oo intaasoo milyan oo qof ay ku soo biirayso horay 1.4 million founders ay ugu jireen bilihii lasoo dhaafay adiga 4-5 bilood ugu dambeysana ay dadka resellerska kusoo shubmayeen shirkaduna marketingkeeda ay ummad aad u fara badan ay kasoo gelaysay waad garan kartaa marka wuxuu yiri mar walba waxaan ku jirnaa dagaal ama battle kaasoo good news ah kaasoo war wanaagsan ah oo mar walbaba wuxuu yiri aan mid fudud ahayn ya macnaha inuu fududaado lagama yaabo yiri dadaalka ama dagaalka aan ku jirnaa kaasoo uu kala jeedo macnaha horumarinta qaabaynta iyo dadaalada ay Ombasif ugu jiraan inaysan ahayn wax fudud adiguba waa dareemi kartaa marka arrintaasi runtii waa arrin aad iyo aad u muhiima sidoo kaleeto isla markiiba markuu kasoo gudbay taa wuxuu yiri waxaanu ku jirnaa buu yiri macnaha ereygii ahaa wuxuuna xasuusiyey halhayska shirkadda oo ahaa do it daily macnaha do or die daily taasoo macnaheedu yahay maalin walba samee maalin walba ama dhimo taasoo macnaheedu uu kala jeedo waxaan ama si saxa oo ma aragtay joogta oo maalin walba u qabo ama kaba dhimaba miinis haba isku hawlinba marka triple D baa la yiraahdaa ana ama saddexdii da'aad baan dhihi karaa Soomaaliga maahan marka ma sha Allah taasoo na xasuusiyay oo runtii halhayska shirkadda halaysideeda kamid ah marka sidoo kale wuxuu sheegay oo macnaha uu markiiba soo hormariyay wuxuu yiri dad badan oo waxa jira buu yiri uu turjimay macnaha waxyaalaha qaarkood
sida maaragtay kulamadii ama wada shaqayntii ay samaynayeen ha noqoto xaflada iyo waxyaalihii dhacayay dad badana waxaa jirta buu yiri qaab aan sidii saxda ahayn wax u turjumay dadaalaya laakiin aan sidii saxda ahayd wax u oranin marka wuxuu yiri waxaan idinka codsan lahaa mar walba cooperate-ka ama shirkadda waxa ka soo baxa suga oo ha ka hor degdeginina oo ma aragtay hasi warbixinta xoogaa macnaha dhinac qaldan si aadnan ugu qaadanin cooperate-ka ama shirkadda kulankeeda weyn ama annaga shirkadda toos wixii uga yimaada oo xaggan hadda sida back office-kan aan hadda ka akhrinayo oo kale ah wuxuu yiri taa un maaragtay gudbiya ha gudbinina wixiinan hubinin halkan waxaan u geli doonaa car payment processorska kuwaasoo ma aragtay siduu sheegayba CEO-geenu ma aragtay xakamayn la ama qaban la lacagaha xoogooda on passive maadaama millions ay ma aragtay adigu xisaabtood isku geysan karta intaasoo milyan oo qof oo qofka ugu yaro uu ma aragtay oo connected subscribe garaysanaya cala la khalli oo ah $240 bal adiguba ku dhufo macnaha haddii shirkad capacity-gii ay qaban kareen ay qaban waayeen waxay noqotay in ay ma aragtay lacagihii gudbin waayaan inay ma aragtay dadkii withdrawalka dalbaday ay kala daahaan inay ma aragtay kuwii shirkadda u socday ay sidii loogu talagalay u gudbin waayaan marka wuxuu yiri waxaanu diyaarinaynaa ama gacanta kula jirnaa waxa la yidhaha in-house waxa weeyaan in aadan banaanka waxba uga baahan hadda dad gurigaaga ku haysato ma aragtay aad ku haysato halkan wax walba kuu dhex yaalaan shaqo aadan aadaynin shaqadaadii online aad ka samaysanaysid maxaa le ilmahaagii gurigii ay iskooladii kaaga dhiganayaan waa sida ombasif balaankeeda insha allahu tacaala dhow aan wada rajaynayne marka wuxuu yiri wax leeraa in-house ayaan diyaarinay in-house waxa weeyaan wax walba adigu inaad haysato oodan banaanka wax uga baahnayn okay macnaheedu wuxuu weeyaan inay diyaarinayaan qaab loo isticmaalayo on passive paymentigan ay iyadu gudbinayso ayadu ay maxaa leeyahay lagu receive garaynaya ama lagu helayo waad ogtihiinoo on passive waxay diyaarisay ama gacanta ku haysaa inay mastercard iyo visa card oo shirkaddu ay leedahay ay already oo qofka magaciisa ku print garaysan yahay qaab chip camal uu ku samaysan yahay amazing ah cajaa'ib ah ma aragta waxyaalo badan lagu tafaftiri doono inay shirkaddu diyaarisay maalintii CEO-geenna uu ma aragtay liidharada qaarkood magacyadooda uu ku wada print gareeyey uu nala sheer garaynaya waan rajaynaya inaad nala joogteen haddaad gadaal nooga soo biirteenna waxaan idin leeyahay insha allah waad arki doontaan biidnillah marka taasna markii visa kaarkii ama master kaarkii dhammaan ay diyaariyeen ayna diyaarshaan walletkiina ay haystaan oo international wallet ay maanta ombasif leedahay maxaa ku xiga inay qaybtii bangigiina ay insha allahu tacaala siduu CEO-geennaba hore noogu sheegay waqti bay qaadanaysaa oo wax walbaahi maalin iyo laba kuma qabsoomayaan laakiin wuxuu yiri markaanu aragnay culayska ka jira third party-ga waxa loo yaqaana ama qolada gacanta saddexaad oo la isticmaalo waxaan ku dadaalnay buu yiri oon shaqaday xoogayga hadda isugu geynay wax leeyahay in-house inaan diyaarino oonan cidna waxba uga baahanin mar dhow laakiin inta ka horeysa waxaynu ku qasbannahay inaan third party-gan aan labada asbuuc oo soo socota aan iska sii isticmaalno iyo wixii ku siman laakiin 2 asbuuc kadib wuxuu yiri war farxad leh wax ka bedelan paymentigii oo ka bedelan qorshihii oo ka bedelan ayaad insha allahu tacaala heli doontaan marka wuxuu yiri macno ma lahan macnaha glitcher yar ama wax yar oo caqabada oo aragtay lacag yar oo daahday lacag maaragtay waxaa jirtay lacaga xitaa marmar akoomada dib loogu soo celinayay waxyaalahaas oo dhan waa little glitcher ama waa wax yar oo aan macno lahayn oo qaladaad yar yar wax yar oo maaragtay xagga uu samaynayo maaragtay teknolojiyaddu taasna dib baa loo set up garaynaya loo hagaajinaya insha allahu tacaala 2 asbuuc kadibna qof walbaahi wuxuu heli doonaa xorriyaddii dhaqaalaha iyo xorriyaddii waqtiga u diyaar garow oo ma tahay adigu mid u diyaarsan inuu fursaddaas ka faa'iidaysto aniga intaa ku daraya sidoo kaleeto wuxuu markiiba CEO-geena kale uu ka hadlay 2 maalmood buu yiri qolada hadda third party-ga ah oo non xagga paymentiga u isticmaalno waxaan siinay 2 maalmood oo dheeri ah in ay ku fududeeyaan
shaqadan aan u idmanay hadday ku fududayn waayaanna waxaan kale oon heshiis la galnay oo aan u wareegi doonaa qolo kale oo maraykan ah oo waxa weeyaan kambani ka baaxad weyn oo waxa weeyaan markaas aan isleenahay baymentigan iyo xooggeeda iyo xawligeeda way hooldigarayn karaan ama way noo sii qaban karaan inta aan ka gaarayno ma aragtay waxaas loo yaqaana inhouseka ama aynu isku fillaashada buuxda gaari doono biidni illahi tacaala sidoo kaleeto CEO-geena wuxuu ka hadlay waxyaalo badan oo waxa weeyaan xagga baymentiga ku saabsan oo runtii dhiirigelin u noqonaysa walaalaha markaa hadda ina dhegaysanayay kuwa dib naga dhegaysan doonaba oo xagga ma aragtay bonuska hadday tahay waxyaalaha bonuska shirkaddu ay bixinayso oo ka baxsan shaqadii lagu qabanayay hadday tahay lacagtaadii ma aragtay lagugu shaqeeyey oo waxa weeye shirkaddu ay ma aragtay marketingka iyo suuqgeynta ay kuugu samaynaysay hadday tahay middii aad sugaysay oo kale oo ma aragtay dhaqaalihii dee shirkadda xaggeeda waxyaalo badan baan rajaynaya inaad ku tabayso ilaa iyo baymentyaal kala duwan oo runtii aanu dhammaantay wada sugi la'anahay ood sugaysay insha allahu tacaala way soo socdaan dhammaantood be patient macnaha qof wax suga oo aan degdegin biliis noqo oo markaas noqo qof u sabra ma aragtay maalmaha yar ee shirkaddu ay soo caga dhiganayso ma jirto shirkad ka bilaabata qaabka maanta ombasif ku bilaabatay ama qaabka ombasif ay maanta adduunkii number 1 shirkadihii maantay 26 sano kusoo jiray fursadaha aysan u helinin maantay qaybaha aan ka hadli doono dambe oo ombasif fursadda u yeelatay runtii qof garaadkiisu uu shaqaynaya iyo damiirkiisu wuu dareemi karaa ombasif meesha ay ku socoto xawliga ay ku socoto iyo meesha ay tiigsanayso adduunka oo dhan baa kusoo jabay adinkoo gadaalka ogaan doontiin biidni illaahi tacaala marka noqo qof ma aragta ku faraxsan oo wuxuu yiri sorry kuma faraxsanin buu yiri dib u dhacaa yar ama in yar ma aragtay processkaas uu yara ma aragtay uu gadaal ma aragtay u dhigo horumarkii macnaha koriinadeena kuma aanan faraxsanin oo waxaan rabnaa wax walba straight ama maalinta ugu horeysaba inay shaqeeyaan laakiin lacagahan ma aragtay qolada processorska ay si saxa u gudbin waayeen ayaa keenay in yar inaynu laakiin buyi mar walbaba safarkayagii aan ku dhalinaynay goolka aan ka leenahay ombasif marnaba dhiirigelin ayay noo noqotaa oo dib wax yar xataa inooma dhigto sidoo kaleeto wuxuu yiri tiimka waxay u shaqaynayaan si adag ayay maaragtay around the clock u shaqaynayaan 24 saac region walbo ay joogaan iyo ma aragtay xilli walbo oo ay ku sugan yihiin habeen iyo maalin waxaa jira dad shaqaynaya oo aan hal maalin xitaa guryahoodii aadinoo xafiisyada dhex seexda waad garan kartaa xanuunka ay leedahay adigoo faamilkaagii iyo qoyskaagii kasoo dheeraaday oo marka waxa weeyaan xafiis seexanaya habeen iyo maalinna shaqaynaya laga yaabo inaysan 2 saacadood oo hurdo ah helinin marka CEO-geennana aan u ducayno iyo dadka la shaqaynaya maadaama uu nin muslima oo waxa weeyaan maantay dhibaatooyin badanna ay waddanku kasoo jeeda ka socdaan xoog ha loogu duceeyo dalka iyo dalkiisi iyo naftiisi iyo ombasifba bilis ha loo wada duceeyo biidni illahi tacaala qof buu yiri ma jiro no one has been seen the numbers we are seen ma jira buu yiri weli qof arkay lambarka aan aragnay wuxuu ka wadaa miinis dadka xawligooda ombasif soo gelaya ee tiradoodu yiri xitaa buu yiri dadka ila shaqaynayahay weligood kama ay fakirinin buu yiri fikirkaas macnaha kama aynan fakirin lambarka saa u tirada badan inay ku arki karayaan oo ombasif soo gelaya si degdega usoo wada gelaya wuxuu yiri kama aynan fakirin laakiin buu yiri anigu invision wax la yiraahdaa jirto invision waxa weeyaan inaad aragti maskaxiyana ah adigoon weli nambarkii indhahaaga ku arag si maskaxiyana buu yiri anigu waan ku haystay invision wax la yiraahdaan u sii haystay buu yiri fikirkaas taasoo wuxuu yiri mar walbaba riyadayda waan u jeeday buu yiri lambaradaas iyo kuwa ka badanba ombasif adduunka dhan inay soo gelayaan waan rajaynayay indhahana waan ku hayay macnaha qalbiga macnaha ama pictureka waan ku hayay
laakiin buu yiri maynan qofna muuna malaysanaynin dadkii ila shaqaynayay oo de way ka yaabeenba marka sidaas marka wuxuu yiri sidoo kaleeto dad badan ayaa wuxuu yiri are flocking in to us macnaha dad badan baa inagu soo flocking I don't know eragaas afsoon macnaha inagu soo yaacaya waa eragaa jecleeda yaacaya Soomaaliga dad badan baa inagu soo yaacaya kuwaas oo wuxuu yiri mar walba arkaya buu yiri macnaha raba buu yiri keega Ombasif macnaha ama macnaha keega Ombasif buu raba inay wax ka helaan macnaha sida inay macnaha rabaan inay shirkadii ama partnership la sameeyaan ama ma aragtay ay affiliates ka noqdaan ama ay ka noqdaan ma aragtay la shaqeeyaan whatever it is dad wuxuu yiri raba buu yiri in ay maaragtay nimcadan Ombasif ay soo wado iyo waxaan weyn ay dhinacooda ka qabtaan ama wax ka helaan ayaa wuxuu yiri maalin walba nagu soo biiraya kuwo markaa raba inay noqdaan greedy waxa weeyaan inuu noqdo qofkii macnaha qof si qaldan macnaha aan sax ahayn uu maaragtay soo gelaya oo maaragtay raba inay de si qaldan wax u qaataan iyo kuwa si sax raba inay nolol shaqeeyaan labadaba marka wuxuu yiri waxay igu noqotay yiri nightmare wax leeyahay macnaha qarowga markii nightmare wax leeyahay qarowga xun ayay igu noqotay yiri dadka qaarkood markaan arkay yiri qaabkay u fakarayaan iyo sida ay ma aragtay adduunka ma aragtay kambriyaasha hormarayaahi waxyaalaha ay face garayn karayaan markaan arko sidoo kale wuxuu ka hadlay macnaha corruptionka iyo waxyaalaha aan wuxuu yiri suuqa ka aragnay ayuu xoog uga hadlay waana ogaa buu yiri anigu maadaama uu suuqan 20 iyo ka badan sano uu lahaa khibrad anigu wuxuu yiri waan ogaa buu yiri laakiin maan ogeyn buu yiri inay sidaas u yihiin maaragtay dadku dad xun ay jiri karayaan buu yiri laakiin buu yiri maxay kugu taalaa Ombasif waa dad khibradaas leh oo aynan biyo ka cabaynin inta haddaan ka soo gudbo taas sidoo kale wuxuu yiri about in 2 weeks laba asbuuc gudahood buu yiri new macnaha waxaad arki doontaan horumaro cusub kuwaas wuxuu yiri aad ku arki doontaan top officials in macnaha dad macnaha sarsare ama officials sarsare iyo wadamo official si ah oo connect u soo maaragtay launchingayaan ama u soo bandhigayaan wadamadooda sida haday jaamacadihii tahay haday dawladihii tahay haday tahay ma aragtay macnaha top officials dad caadiya ma okay waa dawladaha waa maaragtay ma dhihi karna xitaa company waa macnaha meesha ugu sareysa ma aragtay wadan walba ugu sareeya ayaad arki doontaa buu yiri waxbarashadu waa meelaha sare dawladuhu waa meelaha sare macnaha companyyaasha iyo waxyaalaha xataa ma aha is something bigger okay marka oo connective iyo labadaas buuc soo socota waxaad ka arki doontaan wadamo badan already jaamacadan aragnay oo maaragtay walaalku in la wadaagay ma rabeen detailskaas galo marka dhammaan wuxuu yiri waxaad ku arki doontaan biyo labada asbuuc soo socota isbedelada badan ee ay wadamada ku sameynayaan launchingka ama soo bandhigida oo connect ama dawlatuskiisa sidoo kale naga cyber wuxuu yiri naga cyber we will be adding more product macnaha naga cycle macnaha wuxuu yiri waxaan ku soo dari doonaa productyaal kale ayaanu systemka ku soo ama soo gudbin doonaa naga cycle waxa weeyaan qaybta labaad wuxuu yiri waxaan soo ku soo dari doonaa productyaal kale oo connectina wuxuu yiri wuxuu u shaqeynaya ama u iibsamaya hadeer ayadoo waliba car processorkii aw caqabad ka jirto oo kaararkii lacag lagu bixin karin ayay waxay u shaqeynaysaa si xawli ah ayadoo la isticmaalayo crypto national wallets ayadoo la isticmaalayo maanta adduunka waa laga gudbay kaar wax lagu iibiyo lacagta falaadka la yiraahdo loo yaqaano waa laga gudbay cidna ma isticmaasho adduunka wax isticmaala waa iska yaryihiin waxa weeyaan maanta haddaad waddankeennii joogto Soomaaliya oo kale u fiirso meel hadda shaah ka cabaysid $2 tuur $1 tuur 5 tuur ayaa lagu leeyahay okay ma jirto lacag la taaban karo taas waa laga sii gudbay oo lacagtii dollarka iyo EVC pluska iyo iso tuurta iyo saad ahayd wixii dhan waa laga gudba haddana waxa loo gudbay waxa la yiraahdaa crypto lacagtan aan la taaban karin oo digitalka ah taas ayaa adduunka la isticmaala annakana hadda oo Ombasif
qofka doonaya inuu subscription samaysto asbuuciyadan ayuu isticmaalayaa cid walbana waan ku dhiirigelinayna maadaama adduunkii ka guurayo waxaan caadiga ah oo uu digital u gudbayo adigana digitalka walaal ka qayb qaado oo uu connectiga ku subscribe garayso productyaasha kale ku subscribe garayso hawshaadana ku qabso marka wuxuu yiri connecti siduu u iibsamayo waxa weeyaan qof walbaahu wuxuu rabaa buu yiri in uu cadka goosto keegaas macnaha qof walbaahu wuxuu subscribe garaysanayaa si degdeg ah sidaas oo ma aragtay uu rabaa qof walba on Basif connecti ama platformka video conferencing platformka on Basif intuusan kaa buuxsamin suuqgeyntiisa iyo beeciisa iyo isticmaalkiisa intaba intaysan kaa buuxsamin qof walba wuxuu is leeyahay ka qabso dhinacaaga sidoo kale wuxuu halkan ka hadlay CEO-geena maxaa la features ama maxaa la yiraahdaa waxyaalo badan oo ku soo kordhaya connecti platformka cusub ma aragtay video conferencing-keena aan hadda ku wada hadlayno waxyaalaha ku soo kordhay oo sida practicalka ah maalin walba lagu soo update garaynayo update yar buu ka sameeyay halkan oo uu leeyahay waxa ma aragtay connecti معناها costigiisa buu yiri macnaha wuxuu yiri some features of connecti are very costly macnaha wuxuu yiri featurada connecti macnaha way xoogaa qiimahooda qaarkood uu sareeyaa buu yiri mana rabna buu yiri in aynun staff dadka macnaha customer-ka yaga ah inaan featureskaas qaaliga ah buu yiri ayaga aanu ku lacagayna ma rabnu yiri waxaan rabnaa si bilaash in iyagu ku isticmaalaan and we are working on that macnaha waan ka shaqaynaynaa midaas in aysan dhicinin cost extra ah iyo waxyaalo dheeri ah hadaad rabto noise cancellationkii hadaad rabto maxaa wax kasta oo aad rabto maaragtay inaad featureskan isticmaalno waxaan ku dadaalaynaa featureska dhammaan inay ku helaan buu yiri free marka shaqadii baanu haynaa oo waxa weeye maalmaha soo socda halkaas ayaad ka arki doontaan sidoo kale wuxuu yiri wuxuu yiri we have reached we are unseen macnaha waxaanu gaarnay macnaha ma arki kadib buu yiri meelaha aan gaarnay sidoo kale wuxuu yiri waxaana imaanaya buu yiri wax aad iyo aad great u ah ama aad iyo aad u weyn wuxuun haynaa buu yiri output features macnaha output waxa la dhahaa waad aragtay computerkan kale waa input iyo output waxna waa waxa banaanka u soo saaraya warkaaga hadalkaaga waxna waa waxa markaad wax qorayso kale gudihii baad hadalka for example dad wax type garayso waa input gudihiiad u dirto waa input okay output waxa la wax banaanka u socda marka sameecadoo kale waa output banaankii bay hadalka u soo saaraysa marka wuxuu yiri featureska noocaasa ayaynu maaragtay game changer ah ama wax nolosha bedelaya ama maaragtay bedelaya wax badan ayaan wuxuu yiri ku soo daraynaa oo output ah sidoo kale live streamku ka hadlay ama YouTube si directiya in aad adigoon shaashadii ka dhaqaaqin oo connect aad ugu xiri karaysid taasoo uu yiri mar dhow ayaan banaanka soo dhigaynaa oo 25 channel ayaad hal mar ku connected ku dhigi kartaa si directiyana looga wada daawan karaa adigoo on shaashadaada ka dhaqaaqin okay marka kaasna aad ban excited ugu faraxsanahay in walaalaha Soomaaliyeed ay si live YouTube-kooda biidnillaahi tacaala maalinta la soo fasaxo ay nooga daawan karaan haddii Ilaahay yiraahdo wuxuu yiri ma ku faraxsani in ay wuxuu yiri on that macnaha waxyaalaha dib u dhacayo waxyaalahaas uu ka sheekaynaya adigu wuxuu yiri waxaan inaan some attractions inay dadka qaarkood buu meeshan wuxuu ka hadlayaa micnaha dadka qaarkood buu yiri in attractionka lumiyo macnaha inay focuska lumiyaan oo kale oo macnaha ay waxyaalo kale ku leexleexdaan oo aynan macnaha sidii saxda ah dad wuxuu sheegaya markaan si sax wax u wadin oo kale iyo wixii la mid ah marka taa waan iskaga gudbaynaa biidnillah sidoo kale waxyaalaha cusub oo lagu soo adgareeyay ama lagu soo kordhiyay 2 weeks excited features on connecti wuxuu yiri ayaan si daily ah si maalinla ah ayaan ugu soo daraynaa isbedelada connecti ka dhacaya si maalinla ah ayaan ugu soo kordhin karnaa hadda hadaad aragto marka bush linkiga oo kale
macnaha linkigaaga oo kale sorry markaad meesha soo saaray sidoo kale wuxuu ku kala dooransiinayaa in aad si bermada uga dhigayso oo meeting kasta aad linkigaas uu meesha kusoo saarmayo kala dooransiinaya aad tigsiisanayso tikanarka waad aragtay qaabka loo bedelay colorinka lagu sameeyey waxyaalaha la bedelay backgroundkii iyo waxyaalaha la midka ah marka maalin walba wuxuu yiri every single day waxaan kusoo daraynaa wax cusub oo connect isticmaalkiisa ama featureska quruxda badan oo uu connected sidoo kale buu yiri few weeks time macnaha asbuucyo gudahood wuxuu yiri it will be better than dream waxa imaanaya asbuucyo gudahood waxay noqon doonaan wax ka fiican riyo aad ku riyoon jirtay xitaa waxyaalaha riyooyin aad haysatay wax ka wanaagsan ayaa imaan doona oo uu markaa ka wado hadday tahay maaragtay dhaqaalihii hadday tahay dowladaha shirkadii maaragtay kusoo biiraya hadday tahay o connect iyo maaragtay new faceka la geli doono productyaasha cusub waxyaalahaas oo dhan sidoo kale halkan wuxuu ka hadlay CEO-gen ash wuxuu ka hadlay OES app cusub in maaragtay lasoo integrate gareey weliba waan rajaynayaa maanta qofkii fiiriyey in uu arki karo linkiga cusub lagu soo integrate garaynayo Ombasif ecosystem oo ah macnaha meelaad ka soo degsan kartid fadlan intaad caradho ha tegin meelaha wax laga soo degsado only waxaad ka soo degsan karaysaa Ombasif ecosystem haddaad meel kale ka soo degsato appkaas informationkaagana aad geliso Ombasif mas-uulka ma aha walaalaha Soomaaliyeed kula share gareeya warbixintaana mas-uulka ma aha waa in aad mailkaaga iyo passwordkaaga aad gashataa Ombasif ecosystem gudaha markaad gasho ood kor u qaadda falaarta xagga hoose ayaa waxaa lagu soo dhigaya sidii connect maalintii aan soo degsanaynay oo kale appka connect markaan soo degsanaynay oo kale ayaad halkaa ka arki doontaa kadibna haddaad android haysatid haddaad app aad isticmaasho maaragtay kumana imaanin mobile version ayuu ma aragta hadda ku soo baxay mobile version ama qaybta mobilka iyo desktop kuma uusan soo bixinin iyo inaad maaragtay web browser ahaan aad u isticmaali karto awalna wuxuu ku soo baxay connect saad ogeydeen platformkeena video conferencingka mobile baad kusoo degsan kartay computerkaad kusoo dejin kadhay waxaad ka isticmaali kartay browser ahaan baad u isticmaali kartay laakiin kan waa only browser iyo mobile app right now laakiin computerka waa la soo wadaa marka insha Allah taala laakiin labada qayb ayaa hadda diyaara ecosystemkaaga kaliya ayaad ka soo dhowreed garaysan kartaa banaanka dad kala timaado adaa yaqaan bari mas'uuliyadaas qaadaya sidoo kale CEO-gen wuxuu nala share gareeyay verified oo ah KYC-ga Ombasif ama know your customer waxa loo yaqaana ama dadka macmiilkaaga in aad barato oo taasoo macnaheedu yahay in aad sharciyadoodu ay iscadeeyaan dadka ay yihiin cidda ay yihiin iyo si ay ganacsiga kula sameeyaan sababtoo ah qofkaad la ganacsanaysaa haddaadan aqoonin qofka uu yahay ma tuugba ma muxuu yahay dee lama shaqaysan kartid laakiin qofka customerka kuu noqonaya wax kaa iibsanaya kan kula shaqaysanaya kan wax kula qabsanaya waa inaad taqaanaa oo aad sharciga ka haysa adduunka ma jiro ganacsi bilaa sharciya haddaad aragto ma ahan ganacsi sax ah haddaad aragto ganacsi aan sharci lagu weydiinaynin waa fake business ka carar annagaa kusoo gubanay oo nagaga soo gubteen lacaga badan kamberiyaal aan baasaboorna weydiinin aanna weydiinin caddaymo aanna weydiinin informationkeena proof of address aanna weydiinin Ombasif waxa xaqiiqo ah oo kuu caddaynaya Ombasif sharci la'aan biyo kama cabaysid miinis kama faa'iidaysan kartid haddaadan lahayn qof documenti ama national ID haysta ama license haysta ama passport haysta haddaadan ahayn Ombasif biyo ka cabaysid waa in aad sharci yar oo calal aqali inaad diyaarsato birth certificate ama warqadda dhalashada ama waxaanaad u taqaanaan maxaa la yiraahdaa I don't know Soomaaliya magac bay leedahay anyway warqadda dhalashada passport national ID license intaas mid kamida waa in aad diyaarsataa haddaad rabto gudoomiye mudka ka saaran marka in aad diyaarsato weeyaan mid kamida sidoo kale to verified marka
will roll out hadda ayuu soo bixi doonaa waxaa loogu dibdhigayaa maadaama systemkii lacagihii iyo wixii la fariisinayo daasway baa loo hooldi garaynaya okay marka laguma degdeg rabo mideeda kale waxaa cajaa'ib ah oo verified ama KYC ga on passive boqolkiiba boqol every single individual oo on passive isticmaalaya free ayuu u yahay si free ayuu isku verified garaynaya ama isku cadaynaya haddaad u fiirsato waddankayga hadda waxaa la samaynayaa macnaha qofka soomaalinimadiisa in la caddeeyo ID baa la samaynayaa IDgaas meeqa lacagha lagu bixinaya so ka fikir you know bakan adiga free isku verify garaynaysa same time dhaqaale ayaad ka samayn kartaa I hope in la maqlaayo same time dhaqaale ayaad ka samaynaysaa oo kambaniyyaasha shirkadaha dadka maxaa la yiraahdaa mudan in ma aragta ay isticmaalaan oo dawladaha iyo hay'adaha iyo ay oo isticmaalaya ayaad siin kartaa adiga boqolkiiba boqol free buu ku yahay hadday laakiin aad dadkaas la wadaagto dhaqaale xoog badan ayaad ka samayn kartaa because adiga free yaa lagugu siiyey waxaa lagu yidhi adigu free isku verified garee linkigiisa qaado ciddaad rabta la sheer garee shirkaduna ha kuula sheer garayso aslongi linkigaaga qof uu kilig siiyo oo dawlad ama hay'ad ama cid u baahan ama iskool ama ay isticmaalaan oo maarta ID kaar ama ay ku samaystaan ama jaamacadu ID kaar ku samaystaan ama dawladu ku samaystaan KYC ay ku samaystaan waxaad adiga ka samaynaysaa dhaqaale aan maskaxdaada gelin laakiin adiga boqolkiiba boqol free ayuu ku yahay waa ka soconaynaa Odesk productiga la yiraahdo iyo Tracker oo ready way diyaarsan yihiin Tracker waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa waa sida Google Analytics oo kale laakiin ka cajaa'ibsan aan shaqadiisa ku lahayn haddaad aragto cajaa'ibtiisa iyo waxa weeyaan businesskaaga sidoo kuugu analyze gareynayo website-dada ayaa loo design gareeyay in uu ku analyze gareeyo meesha businesskaaga cidda soo booqatay xaggay ka soo booqatay IP address-koodii dhammaan bartuu taagan yahay qofkaas wax kasta businesskaagu meeshuu ka liito meeshuu ka fiican yahay waa garanayaan dadka isticmaala website-yada lihi way garan karaan oo verified wax yaroon macno lahayn bood ku subscribe garaysanaysaa markaasaad adduunka dhan isticmaalayaan ayagoo ku umaraya systemkaaga waa haddii aad noqoto qofka faa'iidaystay marka labadaa producti boqolkiiba boqol way isdiyaarsan yihiin miiskay saaran yihiin keliya waxaa la sugayaa systemkan inuu uu fariisto laakiin mar horaa la diyaariyey oo waxa weeyaan waxay sugayaan isticmaalkeena keliya payment processorsku yiri ilaa aan happy ku noqono ma rabna in aan product kale aan soo bandhigno iyadoo kii horeba maaragtay paymentigooda ay hold gareyn waayeen ama xajin waayeen sidoo kale oo verified on ka soo hadlay wuxuu ku shaqaynayaa business to business ama ganacsi to ganacsi ayuu ku shaqaynaya adiga ganacsadaa tahay markaad on passive ku soo biidho haddaad affiliate ka noqoto on passive oo iibgeeye ama ahow ama founderkii hore ahow ganacsadaa tahay ganacsiyaad haysataa ganacsiyada kale ayaad ka iibin karaysaa oo waxa weeyaan adiga free baa lagugu siiya asa on passiveyan laakiin adigu cidda kale waad ka iibin karaysaa ayadoo shirkadda aad u marayso caawinaadeeda iyo sida ay ku support garaynayso marka halkan xoog buu details u faahfaahiyey in dadka maaragtay ka faa'iideysan kara ayuu maaragtay halkan ku faahfaahiyey oo runtii aad iyo aad u qiimo badan sidoo kaleeto this is next step will blown your mind away micnaha talaabada xigta oon qaadi doonahay waxay noqon doontaa mid maskaxdaada ka weynaan doonta taasoo laga yaabuu yiri dadka qaarkood buu yiri inay uga tagto in shock macnaha ay xoogaa shock ku jiraan macnaheeda for everyone macnaha qof kasta yiri shock bay ku noqon doontaa tilaabada soo socoto oon qaadi doono taasu macnaheedu yahay dee ganacsigu wadada labaad oo uu u gudbayo biidnillaahi tacaala halkan wuxuu ka hadlay bonus instructor-ka bonuska aan idiin soo sheegay oo waxa weeyaan structure-ka ama qaabka uu u shaqaynayo kolaba agreementiga wuxuu ku qornaan doonaa aad saxiixayso qaabku u shaqaynayo sidaad uga faa'iideysan kartaa sida maaragtay qof walbaahi uu maaragtay wuxuu yidhi markaan idinla wadaagna buu yidhi bonus structure-ka markaan idinla wadaagno oo imaanaya waxaan hubaa buu yidhi kuwa badan inay boodboodi doonaan min wallahi macnaha way they will dance macnaha inay boodboodi doonaan macnaheedu wuxuu yahay in ay ma aragtay boodboodi doonaan wuxuu ka wadaa macnaha dee inay ku farxi doonaan
isku soo duube sidoo kale wuxuu halkan ka hadlay taraafiga waxa weeyaan taraafiga daa maqashid waa dadka on passive soo galaya simple macnaha daan kuu sii sharaxoon taraafig saas u shaqeeya macnaha waqtiga kaaga dhacaya laakiin taraafiga daad maqashid waa dad okay meel kale ha ka fekerin waa bini aadanka ama dadka on passive ku soo biiraya tiradooda xitaa buu yidhi haddaanu annagu jooji maagno maba joojin karnaba tiradooda macnaha kusoo qulqulaya habeen iyo maalin marka wuxuu yidhi even if you want ya idina keenin oo soo galay ma aha kuwa linkigayga ku yimid kuwa linkiga cabdi cali soo ku yimid kuwa linkiyaasha dadka soo raacay maaha waa kuwo orphanis loo yaqaan ama aan kuwa aan dad linkigood ku imaanin oo shirkadda si directiya campaignkeeda iyo xayeysiinadeeda iyo marketingkeeda iyo shaqooyinka iyadu shirkaddu hayso ka soo gelaya oo ku soo qulqulaya meel baa lagu kaydinaya waxaa loo dividing garaynaya every single person ama founder ha ahaado ama reseller ha ahaado dadka iibsaday productiga subscriptionka dadka samaystay oo on passive producti subscribe garaystay productigu rababa ha noqday ayaa loo divided garayn doonaa ama dadkaas loo kala qaybin doonaa marka kuwii adiga individualkaaga ad u keensatay iyo oo linkigaaga ku yimid xisaabta ma aha waa dad kale oo shirkaddu kuu ururisay kuu diyaarisay waxa weeyaanna maalin dhow aad rajaynayso biidnillahi tacaala labada asbuuc soo socda in ma aragtay aad aragto hay-ado ama shirkado ama magacyo ee aadan weligaa ka fekerin in aad la kulmi kadhid hoostaada kusoo daadan doonaan ayaga oo annaka ma nihin multi marketing waxa loo yaqaano shirkada dadka la isdul saaro no annaga sell ayay on passive ku shaqaysaa iib markuu dhaco ayay on passive ku shaqaysaa boqolaal qof haddaad linkigaaga siiso laakiin iib uusan dhicinin on passive shaqo kuma laha dadkaas yimid ayagaa danahooda u yimid ayagaa maarata productyaashooda freega on passive isticmaalaya ayagaa ka faa'iidaysanaya laakiin adiga ahaantaada waxba dad baan keenay dad baan soo geliyey qof baan linki siiyey kuma shaqayso on passive waxay ku shaqaysaa sell markuu dhaco ayaa dhaqaalaha samaynaysa qofkii koobaad markuu sell ka sameeyo linkigaaga ama shirkadda ha kuu keento ama adigu keense seelka koobaad markay uu sameeyo qofkaasi boqolkiiba boqol wax aliya wuxuu bixiyey daaragta adiga ayay kuu soo aadayaan kasoo qaad qof reseller aad linki siisay qof baad siisay oo connective u iibsaday platform $240 buu bixiyey 240kiiba on passive first sell direct adiga kuu siisay daqiiqadaas aad la bixi kadhaa daqiiqadaas aad maarta barortayaasha kale ku soo iibsan kadhaa daqiiqadaas ayaad hawlahaaga ku qabsan kartaa laakiin haddii uu maxaa la yiraahdaa qofkaas markaad boqolkiiba boqol ka heshay qof labaad uu haddana oo connect ka iibsado iibaan focus garaynayna forgot about people haddii oo connect qofka labaad ka iibsadana waa boqolkiiba 25 taasoo $60 u dhigmata hadduu reseller yahay hadduu founder yahay oo dadkii horay ugu soo biiray shirkadda ay tahana waa the other price kaasoo ka daalacan ka dho maxaa la yiraahdaa systemkaaga inta haddaan ka gudubno halkan waxaan u gudbaynaa on paymentga halkaan uga soo gudubno halkan waxaan u gudbaynaa GTEX oo ah meel haddaan isku soo ururiyo soo dhaweeyo shirkadaha IT-ga kulan sanadla ah oo loo qabto oo waddanka Dubai lagu qabto kaas oo waxa weeyaan ay ku soo bandhigaan waxqabadkooda on passive waxa ay ka mid tahay dadkaas sanadka waxqabadkoodii ma aha cid walba lama soo casuumo dadka individualka ama hay-ada shirkadahan ka wadaa qiimaha goonidaa leh ama digital bis weeyaan waa waxyaalaha teknolojiyadda bes ayaa lagu soo casuumaa cid walba lama soo casuumo waa dadka teknolojiyadda horumarinaya ayaa la soo dad yaana dhihine shirkadaha ama hay-adaha teknolojiyadda horumarinta teknolojiyadda ku shaqeeya ama ayagu abuura ayaa ma aragtay lagu soo casuumaa kuwooda ugu mudan ma aha kuwo kasta kuwooda ugu mudan on passive waxay ka mid noqotay sanadkan 2023 shirkadaha teknolojiyadda kuwooda ugu mudan halkaas ayaana lagu soo casuumay weliba haddaad GTEX waad google garayn kartaa waa GITEX GTEX haddii aad google garayso
bage walbood soo rogto ombasifay ku xayeysiinayaan bage haddaad social mediaooda aad tagto ombasifay ku xayeysiinayaan waxay xayeysiinayaan maaragtay ninka madaxda ka ah qaybta marketingka maxamed nazaal ayaad arkaysaa inay maaragtay uu ku casuuman yahay oo waxa weeyaan dadka ka hadlaya uu ku jiro oo soo bandhigayo ombasif iyo waxqabadkeedii iyo sanadkaas sida ay maaragtay horumarka iyo meesha loo socdo teknolojiyadda siday uga faa'iideynayaan bini'aadanimada waxay soo dhigeen maqaal maalin dhawood aad iyo aad runtii u cajaa'iba oo leeyihiin ombasif waa shirkadda keliya ee humanity bini'aadanka taabanayo ganacsigeedu taabanayo waxqabadkeedu marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shirkadda noocaasa inaan mid ka nahay ilaahay baan uga xamdinaynaa subxaana wa tacaalaha nagala mid dhigay marka sidoo kaleeto wuxuu yidhi sidoo kaleeta other event ama kulan kale ayaa jira oo bisha dhammaadkeedan bishan oktoobar ku jirna weeyaane dhammaadkeeda ka dhacaya waddanka Egypt kama u hordhicin faallo dheer kama u bixinin laakiin wuxuu yidhi waxaan annagaa idinla soo socodsiinaynaa laakiin dabcan sidaad ogeydeen suusi qaliili oo ah gabadha barnaamijyadan maaragtay qaybta u qaabilsan media ama qaybtan mediaha u qaabilsan ayaa ma aragtay runtii noo soo maaragtay barnaamijka waxyar banaanka iiga baxay marka baan u sayngaraynayaa yarsuga marka walaalayaal haddaan isku soo duubno weli wax yar ayaa ka dhimanaa marka insha allah intaasun baa ugu muhiimsanayd adeeg anyway in yar buu iga xirmay meesha ugu dambeysay marka isku soo duub waxa weeyaan meesha ugu dambeysay baaba marayay waxaa jira buu yidhi sidoo kaleeto several conferences oo ministers dad ah dad maaragtay ministera ah aan la leenahay oo wuxuu yidhi kulamo aan dad maaragtay ministera ah dowlado dad sare aan la leenahay oo runtii ma aragtay aan dhammaantood wixii halkan kusoo koobi karin laakiin ombasif waa transparent waxa weeyaan wax kasta xog kasta si directiya oo muuqata ayaa lagula sheer garaynayaa weligay intaan noolaa ama intaan waxyaalahan tijaabinayo kusoo dhex jiray 9 sano ugu dambeysay maan arkin CEO inta dad soo hor fariista qof ula sheekaysanaya oon anigaan nafisaa u helayo fursad intaan gacanta taagto su'aashaan raba inaan weydiiyo weligeen adinku maad aragteen madaxweyne inta dad soo hor fariista ama nin meel ka meesha rabti shirkadda rabti fiiri hay'adda rabti fiiri ma siiyaan opportunity-ga dadka caadiga ah inay la mid noqdaan aasha nooma isticmaalo inaan nahay dad la shaqaysta asaga nooma isticmaalo inaanu nahay dad maaragtay asaga u shaqeeya midna wuxuu isticmaalaa my brothers and sisters waa kelmadda caalamka CEO isticmaala uusan jirin walaalahayga rag iyo dumarba waa kelmaddu isticmaalo aadna waan ugu faraxsanahay inaan ombasif ka mid ahay aad iyo aadna waxaan uga mahad celinayaa ilaahay subxaana watacaala oo fursaddaana siiyey aash baan uga mahad celinayaa inta ka shaqaysa ombasif baan uga mahad celinayaa CEO-geenna annaka asa Soomaali gudoomiye Cabdi Cali Sow ayaan aad iyo aad uga mahad celinayaa oo fursaddan dadka Soomaaliyeed qofkii koobaad oo nala soo wadaaga ahaa sidoo kalena waxaan u mahad celinayaa leaderska rag iyo dumar bale ee maalin walba garab taagan caawiya la sabood gareeya jazakumullah khayr aad iyo aad baan idin salaamaya walaashi nafsi abdoon intaas ku soo koobaya walaalayaal barnaamijkii update-ka